بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku xidhan barnaamijkan waxbarashada qaabka lacagta looga sameeyo software-ka ama digital product. barnaamijkeennii ugu dambeeyey waxaynu ku soo qaadanay 3 qaybood oo lacagta loo sameeyo, 3 qaybood oo ah 3 qaybood oo ugu muhiimsan ee qofku sida ugu dhaqsaha badan leh uguna sahlan uu ku samayn karo lacagta. sidaan hore idinku sheegayba waxa weeye waxaan baranayno waa digital revolution, cilmiga digitalka oo revolution cusub ah oo una baahan aqoon iyo faham weeye waxa aan baranayno ama aan idiin soo gudbinayo. caawa barnaamijkeenu wuxuu ku kooban yahay 90% qofka bilow halkuu ka bilaabaya, xaguuse sidee buu lacagta ku gaari karaa inuu sameeyo. marka koowaad qof kasta oo barnaamijkan dhegaysanaya waxaan rabaa in dadka Soomaaliyeed ay ka wada faa'iidaystaan. anigu daawashada aad daawanaysaan free buu idin yahay, maadaama uu free idin yahay idinkuna ha ka bakhaylina dadka inaad u gudbisaan waxaan aa u sheer garaysaan dadka. anigu sheer idinkama baani, barnaamijka lacag kama rabo, laakiin cilmiga inuu gudbo oo dadka u baahan u gudbo adigana sadaqay ku tahay anigana sadaqay ii tahay, taa uun ku dadaal. barnaamijka waxaan usoo noqonayaa lacag samaynta. haybe money online baan barnaamijka u bixiyey. barnaamijka anaa daadihinaya, anaa idiin soo gudbinaya qaabka aa u baranaysaan maalin walba lacagta qaabka aa u samaynaysaan. marka koowaad sidaa hore idinku sheegay waxaad u baahan tahay computer, laptop ama desktop. marka labaad internet joogtaa inaad haysato. marka saddexaad waxaad u baahan tahay inaad mindset niyadaadu in ay ka go-an tahay in wax barato oo aan shaki kugu jirin, wax interest ahna ma jiro oo gooni ah. waxaan rabaa markaa waxaa ugu muhiimsan ee barnaamijkan aan caawo idinku soo bandhigay waxa weeye qaybta koowaad. aan xalayto barnaamijkii 3 qaybood aan u qaybiyey, qaybta koowaad baa caawo rabaa oo la yidhaahdo launch checking. launch checking micnaheedu waxa weeye cajalad waa qayb aan waxba ku koosgaraynaynin adigana lacag kuu samaynaysa. waxaad qaadanaysaa ama aada duubaysaa ama aada gadanaysaa cajalad yar oo kooban oo dhowr daqiiqo ah. waxaad gashanaysaa systemka. horta waxaan rabaa in qof walba fahmo waxaad u baahan tahay inaad markaad barnaamijka dhegaysato haddii aad rabto inaad next 24 days lacagtaas la samaynayo inaad samayso waxaad u baahan tahay emailka ku jira website-ka facebooka, emailkayga ku jira oo ah haybehousing@gmail oo lettings@haybehousing.com. labadaas inaad ku soo dirto detailskaaga. markaad detailska ii soo dirto oo aad diyaar tahay cajaladoo dhanna wada dhegaysatay 2-3 cajaladoodoo dambe oo soo socdana aada dhammaysato waxaan gelaynaa markaa 1-to-1 bishiiba 20 qof in loo sameeyo, maalintii adigu 1 qof ama 2 qof. waxaa ugu horeeya ee lagaaga baahayay waxa weeye inaad leedahay Facebook page ama Facebook account. waxaa kaloo furanaysaa YouTube account.
waxaa kaloo furanaysaa Instagram account. saddexdaas very important inay kuu furan yihiin. Just standard one baa u baahatay standard. saddexdan waxaan u leeyahay waa inaad furataa waxa weeye makhaayad ama hodheel cuntada fast foodka ah oo dunida makhaayadaha ugu waaweyn ka mid ah, ama KFC ha noqdo ama McDonald ha noqdo ama Burger King ha noqdo. had iyo jeer u fiirso meelaha istaraatiijiga ah ee ugu dadka badan leh bay ka furaan. reasonka ay meelaha uga furayaanna waxa weeye locationka wuxuu ka caawinayaa customerku inay istaraatiijiyadaas uu dhulkaa uu maalgeliyey inay customerku si sahlan ku iman karaan oo kusoo leexan karaan markay waddada marayaan. sidaas oo kale businesskan waxaad u baahan tahay istaraatiijiyad meesha ugu dadka badan leh ee dunida ay isticmaasho inaad ku leedahay account si aad u gashan karto oo aad uga faa'iidaysan karto traffica. waxaana ugu fiican waa Facebooka iyo YouTubeka iyo Instagram. saddexdaasaa ugu fiican. ala yahaal saddexda account furo qof walba oo programka hadda daawanaya ama raba inuu lacagta sameeyo. waxaa kaloo lagaa rabaa inaad furato laba account. labada account qaabka loo furayo waxoo dhan anaa idin tusi doona. labada account waxa weeye waxaa la kala yidhaahdaa warrior plus. waa warrior waa WARRIOR space plus PLUS iyo JVZoo waa J John taagan V for Victor iyo ZOO. labadooda waxaad ku geli kartaa warriorplus.com jvz.com. waa simple 5 minute baad ku dhisi kartaa. haddii aad u baahato in lagu sameeyana anaad ii soo diraysaa emailka anaa kuu dhisaya. labadan waxay kaa caawinayaan inay kuu sahlanaato in aad lacagta samayso maadaama uu yahay waxa aan ku jirno online yahay. waxaa sahlanaanaysa in aad access u hesho lacagtaada inaad u bedelato account-kaaga kugu soo dhacdo. waa labada company ugu waaweyn ee markaad online-ka wax ku iibinayso aad isticmaali karto. trafficna leh iyaga laftigooda affiliate market bay leeyihiin wayna kaa caawinayaan markaa account ku leedahay. waxaa kaloo jira oo iyagana la rabaa in la furto meel waxaa jirta emailada oo dhan kaa caawinaysa inaad email list samayso. email list casharka dambaan ku sharixi doonaa. casharkan hore horta muhiimadiisu waxaa weeye long checking. markaad samaynayso long checking macnihi waxaa weeye waxaad launch garaynaysaa cajaladaas meesha aad ka soo qaadanayso iyo qaabka aad usoo qaadanayso iyo meesha lacagta kusoo dhacayso iyo waxoo dhan waxaa anaa nidaaminayo oo waxa oo one to one ka aan u samaynayo. laakiin launch checking saddexdii barnaamijee ugu muhiimsanaa ee lacagta lagu samaynayay ka koowaad wey. haddaa cajalada adiga iska duubto oo meel qurux badan oo Soomaaliya oo kaloo bannaan ah duubto ama meel baadiye ah xoolo xilligii ay rawaxayeen oo kale quruxdooda aad hesho ama xilligii ay soo daaqsin baxayeen oo kale oo subaxa hore ah oo rarely ah lama helo ama neef geela oo dhalayo oo kale badda waxyaaba views qurux badan oo landscape ah inaad cajalad yar ka soo duubto adiga oo ka hadlaya qaabka maaragtay cajaladaada uga hadlaya qaabka dhulkaas loogu nool yahay. very simple. cajaladaas oo kale launch checking baa samaynaysaa waa gelinaysaa qaabka loo gelinayo iyo nidaamka lacagta u samaynayso waxaas oo dhan one to one ka ayaan idinku dib dhigay waayo wax
oo qof caadi ah oo online wax ka dhagaysan kara uu samayn kara maaha. waa wax u baahan tilmaan toos ah, qaabkaa u sameeya qaabkaa u sameeya. waxaa jiroo kale meelaha laga gato cajaladaha uu ugu weyn yahay kambaniga Munch Eye, MUNCHEYE. Munch Eye waa meelaha cajaladaha ugu badan laga gato. uma baahnid inaa cajalad samayso haddaa qof dumar oo kala tahay ama ilmo yaroo guri hooyadii la joogo, laakiin high tech si fiican u yaqaana familiga oo kale inaad sawir gashaan aydaan rabin. kambanigaas ayaa cajalado jaban baa laga qaataa. cajalada markaa 50% 60% profit way promotion baa samaynaysaa. qaabka loo sameynayo, qaabka lacagta u samaynayso, qaabka u gadanayso iyo qaabka aa u gudbinayso iyo qaabka account-kaaga lacagta kusoo dhacayso waxoo dhan 1-to-1 baa u baahan tahay, keligaa ma samayn kartid. waxaan ka digayaa qofna inuusan lacag ku bixinin waxaanu hubin. anigoo barnaamijka aniga ku baray inaad meel kale iska aado, lacag meel iska gashato oo saa lacag samee, waa wareertaas. waa in lagu tilmaamaa si aan u qaldamin. anay horey igu soo dhacday, qof kale inay ku dhacdo ma jecli. ilaa aad barato waxa lacaga ma bixinaysid. haddii aad lacag online ku bixiso oo lacagtaas aad wax ku gadato oo hadhowto garaweydo wixii si loo sameeyo waa lacag kaa khasaartay. lacagaha la bixinayana inta badan dhowr boqol oo boon bay u badan yihin waxyaabaha advertisement. soo arrintaas waa inaa aada isaga ilaalisaa. muncheye.com waa meesha lacagta oo laga sameeyo ugu badan, waana website-ka laga gato cajaladaha. cajalada aad gadanayso waxaad garanaysaa Warrior Plus affiliate linka qaadanaysaa. Warrior Plus-kaaga ama JVZoo-gaaga aad gelinaysaa. JVZoo qofkii saa u taabtaba waxaa kuu soo dhacaysa lacag baa kuu soo dhacaysa. uma baahnid viewers YouTube intaad iska duubto dad inay ku daawadaan oo lacagaad hesho maaha. tan lacagta qaab kalea u helaysaa. waa arrimaha aan halka u fadhiyo inaan idin baro oo 1-to-1na idin baro. YouTube-ka baa cajaladana aa ka daawataan. had iyo jeer waxaa xasuusnaataa affiliate linka iyo demoga videoga waa inay wada socdaan. haddayna labadaa wada soconin lacagta ma samaynaysid. advertisementka videoga advertisementka waad copy laga samaynayaa, waa la qaadayaa, account-kaagaa ku ridaysaa. account-kaaga mar kastoo saa loo galo $15, $20, $13, $10, waxaa ugu yar $12 baa kusoo dhacaysa. taas waa information aan meelna laga helin. lacag adoo bixiyo mooyaane aan lagu tusi karayn. qof bilaash wax u tusa dunidana ama wax ku baraa ma jiro. waxa aan idin soo gudbinayaa waa aqoontii anigu aan lacagta ku bixiyey. laakiin dadkaygii maadaama you need meel kastoo joogtaan inaa aqoontan heshaan si aa uga baxdaan baahida ah ku jirtaan ee lacagta iyo nolol xumada lagu jiro. waa ogahay anigu dhibaatada idi haysata. qof kastoo Soomaaliya xaq buu u leeyahay inuu milyaneer noqdo. xaq buu u leeyahay inuu noloshiisa isku filaado. ma rabno dad baahan oo dalkooda ku dhibaataysan oo badaha soo jeeda. waxaa ka fiican waddankaaga adoo jooga inaad lacag ku haysato. haddaan anigu taa heli lahaa dood ba uma soo dhoofeen. alaayi xaal aan kusoo noqdo cajalada uploadinka aad ku samaynayso promotion link bay leedahay. promotion linkaasaa la nidaaminayaa. linkigaas qof kasta oo taabta lacag baa ku leedahay. mana ka baryaysid automatically kugu soo dhacaysa. systemkaana ku samaynaya maaha adiga waxaa samaynaya. this is called tan waxaa la yidhaahdaa passive income. waa ta ugu fiican uguna sahlan adoo Muqdisho ama qaaradda Afrika koona yar ka jooga oo beelbada xeeba iska jooga baad samaysanaysaa cajalad yar oo qurux badan oo meel qurux badan aa ka duubtay. waa gashanaysaa dhag lacag baa kugu soo dhacaysa. adduunka waxaa la ysku dhaafay waxaa weeye qofku inuu wax fahmo, wax barto. waxbarashada ayaa laysku dhaafay adduunka. aqoonta ayaa wax samaysa. qofna waxba ma yaqaano oo meel cidlaa buu fadhiyaa. qofna waxbuu yaqaanaa lacag buu ku samaynaya aqoontiisa.
waxaan rabaa markaa inaan kuu sheego tan waxaa la yidhaha lawn jacking. Lawn jacking waa the best and the easiest. qof waxaan aniga arrimaha ugu sahlan idinku soo bandhigaya. waxaan ogahay dad badan oo idinka mid ah inayna lacag ay haysanin ay cajalado waaweyn ku iibsadaan oo maalintii 3,000 oo pound iyo 4,000 oo dollar iyo 5,000 oo dollar cajalado lagu iibsana lagaaga iibsanayaa jira. ma iibsan kartid. 2,000 oo dollar baa lagaa siinayaa, aqoontii oo dhan baa ku jirta. markaad promotion u samayso a day baa $1,000 helaysa ama $2,000 a day. laakiin lacagtii qof Soomaaliya jooga ma hayo ama qof qurbaha jooga qaxootiya ma hayo. tan way taa ku soo kacaysa ilaa aad kale ka gaarayso. barnaamijka waqtigiisa uu iga dhacay waxaa ku soo koobayaa passive income ayaa la yidhahdaa. passive income waxaa weeye adigoo iska jiifa ayay lacagta ku soo dhacaysa. adoo gurigaaga jooga oon meelna aadin lacagta axjaladaa qof kastoo taabta traffic fiican un baad raadinaysaa. Instagramka, maaragtay TikTokga, YouTube, Facebook, meel kastaa gashanaysaa. straight away linkigaaga mar hadduu kusoo dhaco qof kastoo linkigaa soo gala straight away lacagta waa samaynaysaa. waxaan kusoo gabagabaynaya barnaamijka lacag samaynta internetka. barnaamijka iminka aan maanta aan duubay waxa weeye waa softwareka iyo digital products. waana barnaamijkiisa koowaad oo ah launch jacking. qof kastoo Soomaali ah oo barnaamijkayga daawada waxaan ka codsanaya inuu walaalkii u gudbiyo si uu baahida uga baxo. maxaa ilaawina email list baan idiin samaynaya si aa information fiican u heshaan. qof walowba emailkaaga, taleefonkaaga iyo meesha aad joogto ayaad ku soo qoraysaa. uma baahnid inaad WhatsApp igala soo hadasho. waxaad u baahan tahay inaad emailkaaga isoo dirto. soo adoo gurigaaga joogaan emailka ugu soo gudbinayaa informationka oo dhan haddii alla insha allah. waxaan kusoo gabagabeynayaa qof kasta oo Soomaali ah oo barnaamijkayga dhageystay ama dhageysan doona waxaan leeyahay walaalow si walaaltinimo ah barnaamijka uga faa'iidayso. wax buuqa iyo wax siyaasad ah kuma jirno. dadkaan iminka caawinayna. so Facebookga iyo Instagramka iyo YouTubeka meel kastoo cajalada ku aragto inaad wanaag ka taliso gudbiso mooye cay iyo xumaan waa kaa xaaran. ka faa'iidayso cilmiga baro dadkana u gudbo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.